لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم منها. عباد الله، أولا أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل في السر والعلن، وذلك بامتثال أوامره طلبا لتحقيق مرضاته جل في علاه، واجتناب نواهيه خوفا من غضبه وعقابه، فإن رضا الله سبحانه وتعالى على العبد إنما هو بقدر تقواه منه، وغضبه سبحانه وتعالى على عبده واستحقاق العبد عقوبة ربه إنما هو بتضييع الفرائض والأوامر والواجبات وارتكاب الذنوب والمعاصي والمنهيات. فاتقوا الله تعالى في أفعالكم وأقوالكم وما تنعقد عليه عزائمكم، فإن الله سبحانه وتعالى كما هو عليم بالأقوال فهو عليم بذات الصدور. عباد الله، حديثنا مع حضراتكم في هذه الدقائق المعدودات عن موضوع بعنوان من محاسن العفو. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. walaalayaal waxaynu insha allahu tacaala khudbadda kaga warrami doonaa min maxaasin alcafw, cafiska iyo wanaagyada uu leeyahay. shaki mala walaalayaal inuu cafisku leeyahay wanaagyo fara badan iyo faa'iidooyin fara badan. maxaasinta iyo faa'iidooyinka ku jira cafiskana lama soo koobi karo. haddii aynu isnidhaano si qoto dheer ah uga warantaan waqti buu inaga qaadanaya. waxaase insha allahu tacaala kaga gaabsan doonaa qayb yaroo ka mid ah calaa xaddi qowli alqaa'il khayru lkalaami maa qalla wadal. waxaynu uga warramaynaa walaalayaal cafiska iyo wanaagyadiisa waa min baabi alxathi waatargiib. waxaynu isjeclaysiinaynaa waynu isku dhiirigelinaynaa cafiska.
maadaama cafiska aynu ku helayno khayr adduuniya mid aakhiraba sidaasoo kale waxaynu cafiska kaga badbaadaynaa shaydaanka iyo sharkiis shaydaan oo har iyo habeenba u taagan isku dirka bulshada iyo iska horkeenkeeda waxyaabaha lagaga samatabaxaya waxaa ka mid ah in cafiska aad markaa lagu waxween dadaalo laga warhayo waxaa rasuulku sheegay calayhi salaatu wasalaam xadiis imaamu muslim fii saxiixi ku wariyey min xadiidi jaabir bni cabdillaah alansaari radia allahu canhuma waxau rasuulku yidhi ina shayطaana qad aysa an yacbudahu lmusalluuna fii jasiirati alcarab shaydaanku waxa uu ka quustay oo uu ka rajo dhigay in musalliintu ay ku caabudaan oo u sujuudaan ama cibaadooyinkaba ay markaa ku siiyaan jasiiratu alcarab walaakin ataxriisha baynahum rasul walaakin fi taxriishi baynahum rasuulku calayhi salaatu wasalaam taa haddii uu ka wax weeyaan quustay waxaanu ka quusanin bal uu ku guulaystay inuu markaa iska hor keeno oo isku diro ayuu markaa ku guulaystay idaa markaa walaalayaal shaki ma laha cafis in wax weey ay ku jirto ilaahay subxaanahu wa tacaala ridiisa iyo raaliyaashiisa sidaasoo kale shaydaankana sandullayn bay u noqonaysa shaydaankana sandullayn ayay markaa u noqonaysa sidaynu soo tilmaanay maxaasinta iyo wanaagyada cafisku waa waxaa la koobi karin waxaynu insha allahu tacaala dul marayna oo sardin doonaa qaybo yaroo markaa ka mida taasoo ku fillaanaysa addoonka soo ilaahay subxaanahu wa tacaala khayr waafajiyey maankiisuna markaa uu fiican yahay ku fillaanaysa oo shidaal u noqonaysa waxaa ka mida wanaagyadiisa ana alcafa sifatu min sifaati almuttaqiin wa akhlaaqi almuxsiniin cafisku waxa uu ka mid yahay summadaha iyo tilmaamaha ilaahay subxaanahu wa tacaala ku tilmaamay addoommadiisa qiimaha badan ee muttaqiinta la yidhahdo heerka saraa iyo akhlaaqiyaadka lagu yaqaano dadka wanaagsan ayuu markaa ka mid yahay cafisku waxau ilaahay subxaanahu wa tacaala yidhi wasaaricuu ilaa maqfirati min rabbikum wajannatin carduha asamaawaatu waalard uciddat lilmuttaqiin waxaad u kala dheeraysaan oo aada u beratantaan janno dembi dhaaf rabbigii subxaanahu wa tacaala xaggiisa ka ahaatay iyo janno ballaceedu yahay samaawaadka iyo dhulkoo laysku daray haddii laysku xidhiidhin lahaa markaa ka weyn ka ballaaran jannada ilaahi subxaanahu wa tacaala addoommadiisa ugu talagalay xagga ballaceeda marka laga hadlayo waxa ay ka weyn tahay samaawaadka iyo dhulkoo laysku daro oo la fidiyey oo laisdabageliyey weli waa samaawaadka toddobadaa weeye dhulalka toddobada oo laisdabageliyey waa xagga ballaca weeyaan amaa tuuluhaa falaa yaclamuha ila allah dherarka ay leedahay ilaan baa subxaanahu wa tacaala garanaya jannadaasoo uciddat lilmuttaqiin loogu talagalay oo loo diyaariyey dadka muttaqiinta la yidhaahda qiimaha badan dadkaasuu ilaahay subxaanahu wa tacaala tilmaamo ka sii bixiyey waa aladiina yunfiquuna fi sina oo iyagu markaa maamuloo qabta waxau ilaahay subxaanahu wa tacaala sii raaciyey waa maxalu shaahidkee waa dadkana iska cafiya dadku marka ay ku khaldamaan oo ay markaa waxaan ka qabanin ay ula yimaadaanna waa kuwa waxay markaa iska cafiya ilaahay subxaanahu wa tacaala wallahu yuxibu lmuxsiniin dadka muxsiniinta la yidhahdee samafala ilaahay subxaanahu wa tacaala waa jecel yahay idan aayadda walaalayaal tilmaamaha ilaahay subxaanahu wa tacaala ka baxshay dadka muttaqiinta la yidhaha waxaa ka mid ah sifatulcafiga markaa wax weeyaan ka mid a waxaa ka mid a wanaagyada uu leeyahay cafisku annahu sababu linayli lmaqfirati min allahi subxaanahu wa tacaala waxa uu ka mid yahay waxyaabaha lagu helo ilaahay subxaanahu wa tacaala dembi dhaafkiisa aad iyo aad baynu ugu baahi badannahay aad baynu ugu baahannahay inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala dunuubteenna ina cuslaysay naga dhaafo waxyaabaha aynu taa ku helayno waxaa ka mid ayuha alaxibatu fillaah cafisko aynu ku dadaalaaba markaa ka mida waxau ilaahay subxaanahu wa tacaala yidhi waliyacfuu waliyasfaxuu alaa tuxibuuna an yadfira allahu lakum waxau ilaahay subxaanahu wa tacaala yidhi waliyacfuu waliyasfaxuu ha iska dhaafeen ha saamexoonaha cafiyona ha iska dhaafeen aayaddu kuba soo degto fii sha'ni abi bakri wa misطaxa waman takalama bishayin min alif laakiin alcibratu bicumuumi lafdi laa bikhusuusi sabab
waxa ilaahay subxaanahu wa tacaala leeyahay dadka muuminiinta ha iska cafiyeen oo ha iska dhaafeen ciddii waxyeello iyo dhibaato markaa iyaga soo gaadhsiiya waxa ilaahay subxaanahu wa tacaala sii dabageliya taxdiid wax loo yaqaano ama dhiirigelin waxuu rabbi subxaanahu wa tacaala yidhi alaa tuxibuuna an yakfira allahu lakum miyaydaan jecleen idinkuba inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala idiin dembi dhaafo ma jeceshin inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala idiin dembi dhaafo oo xumaantii aad geysateen iyo gefka aad ka gasheen inuu idinka saamaxo idinka cafiyo markaa wax weyn soo ma jeclidin wey waxaa meesha ku jira haddaad sidaa jeceshihiin idina markaa wax weyn cidda khaladaadka idinka gashay iska cafiya oo iska dhaaf wey sideedaba waxaa la yidhahdaa aljazaau min jinsi alcamal baa la yidhahdaa abaalmarintu waxa ay ku xidhan tahay kolba nooca camalka markaa qof kasta oo doonaya inuu isagaba ilaahay subxaanahu wa tacaala cafiyo oo khaladaadkiisa ka dhaafo isna waa inuu cafiyaa dadka weliba ku darso xataa hal qof hadduu dhowr jeer kugu khaldamo waana iska cafidaa maxaa yeelay adiguba imise jeer baad ilaahay subxaanahu wa tacaala khalad ka gashay imise jeer baad ilaahay subxaanahu wa tacaala xuduudihiisa aad jiidha ood ka cadhaysiisaa maca daalika ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku dhaafaya waxaa ka mid a walaalayaal maxaasinta uu leeyahay cafisku annahu طariiqu lilmaxabati waalmawadda waxa uu dariiq iyo waddo u yahay isjaceylka bulshadu isjeclaato iyo kalgacalka waxay bulshadu isku jeclaanaysaa oo ay isugu markaa tiirsanaanaysaa kufaya markaa qabaysaa kuna horu maraysaa cafiska markaa wax weyn ay ku dadaalaan ama waa fawaa'idda markaa laga helayo mid ka mida weyn waxau rabbi subxaanahu wa tacaala yidhi walaa tastawi alxasanatu wala sayi'a xumaan iyo wanaagu ma sinna xumaanta iyo wanaagu wax weeyaan ma sinno meel ma wada maraya idfac bilatii hiya axsan waxau ilaahay subxaanahu wa tacaala leeyahay isagoo nebi maxamed la hadlaya calayhi salaatu wasalaam hadalku innagana way nagu dhacayaa idfac bilatii hiya axsan ciddii waxyeello ku gaadhsiisa ama xaggeeda xumaan ay kaa soo gaadho xumaantaa xaggooda ka timi waxaad ka horgeysaa wanaag markaa ka horge ugu bedel faida aladii baynaka wa baynahu cadaawatun kaana waliyun xamiim waaba tiyo qofkii ay colaad idinka dhexaysay la mooda waxbay markaa gacal iyo xigto waxbay markaa mushfiqa waxaase ilaahay subxaanahu wa tacaala sii raaciyey dadka markaa dhibaatada la gaadhsiiyo iyagu xumaantii la gaadhsiiyey ama loo geystay wanaag ku bedela inay dad markaa farakuutiris ay yihiin baa ilaahay subxaanahu wa tacaala sii sheegay arrintaana cid walba la waafajin baa ilaahay subxaanahu wa tacaala tilmaamay wamaa yulaqaahaa ila aladiina sabaruu wamaa yulaqaahaa ilaa duu xadin cadiim lalama kulansiiyo lama siiyo arrintaa iyada ah ilaa kuwa dhabradeega adkaysta mooyaane iyo kuwa wax wey markaa dheef weyn u saaxiiba mooyaane dad ka tegey ayuunbaa xumaantii la gaadhsiiye wanaag ku bedela innagu se waxaynu wax weyn u badannahayba qofkii xumaan geysta in boqolaal kale wax wey markaa lagu abaalmariyo qofkii far soo taagay in shantaba loo taago qofkii kelmad wax weeyaan ku hadlo xumaana intoo markaa lagu sarifo xaalkeennu markaa waa sidaas wey arrin wanaagsanna wax wey markaa ma aha waxaa ka mid a walaalayaal fawaa'idda laga helayo cafis ama wanaagyadiisa waxaa ka mid ah annahu طariiqu lirifcati cinda allahi wa cinda khalqi cafisku waxa uu ka mid yahay qaababka ilaahay subxaanahu wa tacaala agtiisa derajo lagu yeesho ilaahay subxaanahu wa tacaala agtiisa maamuus lagu yeesho ayuu markaa ka mid yahay iyo dadka agtoodaba si kale haddaan u dhigo ruuxa ku dadaala cafiska waxau ilaahay subxaanahu wa tacaala agtiisa ku yeelanayaa derajo sarraysa ilaah baa subxaanahu wa tacaala dallacay sharafuu ilaahay subxaanahu wa tacaala siinaya maamuus dadka agtoodana qiimo ayuu markaa ku yeelanayaa waxau rasuulku yihi calayhi salaatu wasalaam wamaa zaada allahu cabdan bicafwin ilaa ciza ilaahay subxaanahu wa tacaala addoon ilaahay uguma kordhiyo cafis ilaa sharaf mooyaane sharaf iyo maamuus iyo magac iyo sumcad baa ilaahay subxaanahu wa tacaala ugu siyaadiyaa qofku markasta uu qaato cafiska uu ku dadaalo innagu se waxaynu moodaynaaba qofka aarsan waaya aar gudan waaya xumaantii loo geystay wax weeyaan ka daba tegi waaya mid nacas oo ka dhacsan ayaynu markaa wax weeyaan u haysanaa sidaas ma qofka wax weeyaan xumaanta loo geystay iska saamaxana qof wax weeyaan dulli ayaynu u haysanaa sidaas ma qofka wax weeyaan markaa dhaafa
xumaantii loo geystay iska dhaafa saamaxitaanka iyo cafiskana ku dadaala ilaahay subxaanahu wa tacaala agtiisa darajadaas sarraysaa buu ku yeelanaya وبالتالي dadkuna waa jeclaanayeen qofka cafiska badan waa jeclaanayeen way soo dhawaysanayeen ibn Hibban waxa uu fi saxiix ku soo wariyay imaam al-Albani oo tasxiixinaya min xadiith Abi Hurairah radiyallahu anhu in waxa markaa rasuulku alayhi salatu wasalaam nabi Muuse ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala weydiiyay lix arrimood baa ilaahay subxaanahu wa tacaala si gaar u weydiiyay waxa kamid ahaa fa ayu ibadaka a'azzu adoomada ilaahayow keeba ugu adag oo ugu sharaf badan oo ugu qiimo badan waxa uu markaa yiri alladhi ila qadara ghafara wa midka markuu dadku ay dhibaato u geystaan isagoo awoodi kara inuu ka aanguto dana iska dhaafo kaasa ugu wax weeyaan adag buu markaa ilaahay subxaanahu wa tacaala rasuulkana alayhi salaatu wasalaam waa kiilaha qofka shadiidka ma aha ka dadka leegday wax weey sabaaxadaya waa ka naftiisa wax marka hantigu rasuulku alayhi salaatu wasalaam idan qofka waxana aziiska qiimaha badani waa ka dadka cafiya markuu caroodana naftiisa kantaroolo maamula kaas ayaa marka wada waliba cafiskaasi waxa uu qiimo leeyahay marka iska cafiyo adigoo kari kara qofkii inaad ka jarato qof dhibaato ku gaarsiiyay awood baad u leedahay dhibaatada aad ka aargudato waad ka aarsan kartaa haddana waa iska deys qiimaha le marka waa taa weyn laakiin mid aanad uga dhawaan kareeyo aanaad intaal buu hayna dad taraado waa iska cafiye laftigeedu ma xuma laakiin abaalmarinta inta leeg heli mees abaalmarinta inta leeg marka waxaan heli mees waxa kamida maxaasinta iyo wanaaga uu leeyahay cafis wax weeye waa sababun annahu tariiqun likasb alqulub waxa lagu hantaa qulubta la siyama qofka xil haya waxa uu marka ciidan u taliyo ku hanan karaa wax weyn oo cafiska ku dadaala uu ku hanan karaa waxa ilaahay subxaanahu wa ta'ala yiri isagoo Allah muxuu ka waramay nabi Muhammad alayhi salaatu wasalaam fabima rahmatin min Allah linta lahu ilaahay subxaanahu wa ta'ala rahmad xaqiisa ka ahaatay ayaad ugu dabacsanaatay walaw kunta faddan ghalid alqalb lam faddu min hawlik hadaa noqon lahayd midka kan oo qalbi adag asxaabtaasi hareeraha ay ka yaacilay ilaahay subxaanahu wa ta'ala nabi Muhammad alayhi salaatu wasalaam wuxuu ku guuleysay asxaab fara badan oo kala jinsiya inuu markaa wax weyn isku wada keeno oo dhamaantood hareerihiisa markaa istaagaan waxyaabaha uu ku hantay waxa kamid ah akhlaaq wanaagiisa markaa kamid ah dabacsanaantiisa baa kamid ah cafiskiisa kamid ah rasuulka alayhi salaatu wasalaam sida Aisha tilmaamayso weligii naftiisa uma aargudan weligii wax weyn markaa naftiisa waxyeelo la gaarsiyo uma cadhor laakiin wuxuu calaamay rasuulku alayhi salaatu wasalaam marka wax weyn ilaahay subxaanahu wa ta'ala diintiisa meel ku dhac lagu sameeyo markaas uu kici jiray naftiisa wax weyn wax uu markii jiray uu saamixi jiray waa inaga wax weyn cagsi weyn inagu wax weyn kana soo eega weyn ku kacnaa laakiin ka diinta aflagaadeeya diinta xumaan gaarsiiya muqaddasaadkeeda ka hadla waa laga gaabsadaa soocinka ma waa cagsi marka wax weyn inaga markana la soo doonto ama qofka waxa reerkooda iyo familkooda wax laga sheego dhiiga karayo kacay marka diinta ilaahay waxyeelo la gaarsiiyana waa laga wada dhacay qaar kood baad arkaysaa markay diinta caayaan marka wax weeyaan lama odhanayo diintaadu caayay diintaadu gaar ka haysa maada lagu soo dirtay halkaas marka uu sheeno ay marayso xafisku walaalayaal waxa uu leeyahay fawaa'id fara badan waxa kamid ah waxa lagu helaa dambi dhaaf ayaa marka lagu helayaa maalin kasta oo wax weeyaan isniina iyo khamiisa qofka waxa dadka saamaxa qalbigiisu saafi yahay waxa uu kamid noqonayaa dadka faraha badan ee ilaahay subxaanahu wa ta'ala maalin kasta oo isniina iyo maalin kasta oo khamiisa u dambi dhaafay waxa rasuulku sheegay alayhi salaatu wasalaam in maalin kasta oo isniina iyo maalin kasta oo khamiis ahba la furayo albaabada jannada ayaa la balaqay waxa ilaahay subxaanahu wa ta'ala u dambi dhaafa adoon kasta oo ilaahay subxaanahu wa ta'ala u shariig yeelay adoon kasta muwahhida ba ilaahay subxaanahu wa ta'ala u dambi dhaafaya waxa laga soo reebaya illa rajulan kanat baynahu wa bayn akhi shahna waxa rasuulku alayhi salaatu wasalaam waxaan liiska ku jirin oo laga soo reebaya qof isagii walaalkii ay calool xumo marka ka dhaxayso qofka cid kale isqoonsadeen ismaageen weyna aanay is saamixinay isku urdabayaan
ليس كوا لغيربي وحلرنا يا كواس أكادية حتى يصطلح إلى أنت يبغى يسوه الشينيات وأي مرة عرفتوا ذا يصور لما يصير أكادية والكورة مليان كلها شديد معلم والله السنين يا مالك السوق خميس أب هداد ليس كات كقطع كور ليس كواحد لودن بنافي هداد تكور أو خميس تنهي بس قبضتنا هذا على السنة تبتنا ولا قارن خميس كلنا ميت كلا قبضتنا هذا نوعات كهذي السنين تنا وحويان ميت كلا قبضتنا معلم بدل من سيستان وحوي مركز ليس كاسات كارس سأسوي البدين تنو حرام بوجدكتي صدح مع الموضوع كبر إن أفكار لا يسكت تاجو أفكار لا يسكت برا محرم ودينتين إلى واحد وديسين إنه نجيرك وعفس ككل دلالة إنه لا سبحانه وتعالى نجيرك أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد أيها المسلمون عباد الله اتقوا الله تعالى فإنها شعار المؤمنين ودثار المتقين ووصية الله في وفيكم أجمعين. ولا ليال waxaynu ka soo hadalnay cafiska iyo qiimaha uu leeyahay faa'iidooyinka laga helayana waynu ka soo hadalnay sidaan bilowgaba ku sheegay cafiska iyo qiimihiisa iyo faa'iidooyinka ku jira ama wanaagyadiisa lama soo koobi karo lama waxbay markaa soo koobi karo ase yeeshee inta aan soo sheegnay fiiha kifaaya qofka ilaahay subxaanahu wa tacaala khayr la doonay oo ilaahay subxaanahu wa tacaala khayr waafajiyey intaas ayaa markaa ku filan haddaynu wax weeyaa markaas soo ururina khulaasatul qawl cafiska waxaa ku jira liibaanteena adduunya ta aakhiraba cafiskaasay ku jiraysa inaynu markaa ku dadaalo qofka cafiska ku dadaala adduunyadana waa uu ku badbaadaya waxa uu ka badbaadayaa dhibaatooyin fara badan oo cafis la'aantu ay keenayso waxaa ka mid ah dhibaatooyinka laga badbaadayo waxa loo yaqaano stresska ka mid ah ama isku buuqsanaanta وحنوننا ugu badana caalamka la daweeyo waxa kamid ah stress waxa loo yaqaan qofka isku buuqa waxyaabaha keenaya horseedaya waxa kamid ah qofka aan cafisba garinay albaabka cafisku ka xidhay qofka marka aanu cafisku ku wanaagsanay qofkii ismaagaan maalinba kelmad ku yiraahda wax way meelba wax ku qabanaya qalbigu wax ku qabanaya qof wax ka doonanaya wax buu weydiisanay uu ka waayaya dabeetana uu cadhoonay سألك مس مركا وحويا تحصل ما يقف تحصلوني ذا أيام مركا وحوي كبوريس وبالتالي قفكو مركا وحصلوني ذا سأكبرته أو الدرام استرس وحياة النوع عاصنا حنونا كلا كسيد دراني بيكركا كمل معانكا كمل حنونا فربنا نوع عاصر أيام وحياة صباحا كمل ذا استرس كاسي ورحمة ذا ساكمل مركا وحنا أيها العبد المسلم إسكيل عليه وركا وحوي مركا هجاج نفط هذا وحوي كل نوع ولبنا وحوي لبض قف وحمران وحا آذو قيمة بدن وفضل بدن كيسوي بلابي سلاحين تيجاجنت قف اسماعتين دبتر واد عفيدي عفي بعد كتري سنو كديدي هذا واد كبح لي جوديجاس والله قاعد بلاي سجى تيسو وقارو سو بركة تيسو قار بمركان ورس الدنيا وحا وقف هو ليسني أسن صوت المعني رفعة تذكي بعد شعلانية قفلة شعلي بمركان محبوب بين الناس أي مركان نغنية dadka caafinta dadka waxaan caafiyaa waa marfuuc bayna al-anam waa dad qiimo qaalay weeye aakhirana waxa lagu badbaadayaa sidoo Ilaahay subhanahu wa ta'ala sheegay cafiskaas lagu badbaadayaa waxa Ilaahay subhanahu wa ta'ala yawma la yanfa'u maalun wala banuun illa man ata Allah biqalbin salim waxa iman doonto maalin ubadka iyo maalku midnaan waxba taraay awlaada dhashayaanay ku garab istaageen waxba ku qabanay maalka adduunyada kaga tagtay أنا وحبك وتري مالك الشيء وكذا الدنيا كذا تكتوي كذا سكسي ورئيسي كاسوا كونفع يا شكل مرة يا سمع أنت بتبادي إلا من أتى الله بقلب سليم قفك الله سبحانه وتعالى ولي مادة قلب عافمات قبول في يوم مركب ولي مادة قلبي سواء قلبي وقلبي حمان ولا جيل اليوم
وقلب الله سافي قري حماني حقد لما أنت تلاقيه marka walaalayaal aynu marka taadiyad ugu marka wax u dadaalo walibana wax waxa ku sii dar la cafiska rasmiga ah waa marka qofka aan isqabsateen aad saamaxo dibna aad u soo hadal qaadin wixii isku qabsateen cafiska waa inuu ka yimaada qalbiga waa inuu marka ka yimaada kalaagtiisa qiimo kul waka laakiin naga waxa mudda cafiskeen waa iska dulmar weey waa saamaxna ku cafi birrito markay siyara maagaana liiska la soo baxay wadiga darana saayiri sanadkii hore caynka saatiri maalintii hore saatiri taasan ka dhaaf oo taa kala oo maxaad u soo dalqaadaysa Saudi dhaafayba taasi ma cafis maaha cafiska rasmiga wax weeyaan qofka wixii aad isku qoonsateen aad ka saamaxeen dib wax weeye arad marka u soo dalqaadin ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaanu ka baryaynaa inuu naga yeelo kuwa iscafiya oo wax weey isku dul qaatay inuu ilaahay subhanahu wa ta'ala naga yeelo inuu ilaahay subhanahu wa ta'ala wadiisanaa ala sallu wa sallimu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam امتثالا لقول الله تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة وعن التابعين والتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بفضلك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالديهم ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء والأموات يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون أقول قولي هذا وأقم الصلاة